السلام عليكم صاحبتي قليقة صلوا هذا مانتي وسؤال ويدينتي عفماتك هراء إنه قبرتين مانتا واحد دين وذا توبن سؤالات وعفماتك كواسو كويزة ما دق أنا ربنا أول جوابتان سؤال شو ممكن كويديو اسكو دقينا جوابتي هذا سيد قرطو أنا قلنا ممكن يقدرون جوابت إن شاء الله سؤال شو كواد إبراهيم تقول حيتاني وات حبنت وين شركة بين آدم كا سؤال شو جوابتي ده حين نقول نسا ومقاركة سؤال شو لبعض إبراهيم تقول حين نقول نسا شيك هرمونات اللي يقنا هرمونات الضمركة كان كواد وبروجسترون كان لبعض مجلس كان لبعض مجلس وحنا نقولنا يا استروجين هرمونات اللي يقانو فيميل هرمونسكا لبعض هو وين استروجين يا بروجسترون سؤال سدحاد إبراهيمتك waxaad sheegtaa borotiinka noo sameeya cidjiyahana waxa adkeeya ama sameeya borotiinkaasina waxa loo yaqaanaa keratin protein su'aasha afraad ee barnaamijkeena waxay tahay waxaad sheegtaa xanuunka ama cudurka loo yaqaano lockjaw qaal xiran ama se daanka qofka inuu xiramo lama awoodo in afka wax laga geliyo qofka uu ku dhaco xanuunkaasi waxa la yiraahdaa marka lockjaw xanuunkaasi magaciisa waa tetanus ama xanuunka Soomaalidu u taqaano koojisada teetano ayaa lagu magacaabaa su'aasha shanaad ee barnaamijkeena waxay tahay waxaad sheegtaa lafta u dhaxaysa labada duleel ee sanka magaceeda lafta u dhaxaysa labada duleel ee sanka waxa lagu magacaabaa femur bone su'aasha lixaad ee barnaamijkeena waxay tahay waxaad sheegtaa neerfaha dareenka siiya xubnaha taranka ee banaanka xubnaha taranka waxa loo qaybshaa laba qaybood external genital organs iyo internal genital organs kuwa gudaha ku jira sida minka waxansidayaasha iyo waxyaabo la midka kuwana waa kuwa banaanka yaala oo kamid yahay vaginaha iyo xubnaha haddaba waxa laga rabaa waa kee neerfaha dareenka siiya xubnaha taranka ee banaanka yaala waxa la yiraahdaa pudendal nerve su'aasha toddobaad ee barnaamijkeena waxay tahay waxaad sheegtaa lakabka ugu sareeya maqaarku wuxuu ka kooban yahay 3 layer ama 3 lakab midka u sareeya midka dhexe iyo midka gudaha ku jira midka ugu sareeya waxa lagu magacaabaa epidermis su'aasha sideedaad ee barnaamijkeena waxay tahay sheeg hormoonka loo yaqaan hormoonka ragga magaciis hormoonka ragga waxaan soo sheegnay labada hormoon ee dumarka ugu weyn haddana waxa laga rabaa hormoonka ragga waxa loo yaqaanaa testosterone su'aasha sagaalaad ee barnaamijkeena waxay tahay maxaa loo yaqaanaa ama magaceed area u dhaxaysa sanka iyo afka tusaale ahaan faruuriyaha iyo sanka meeshaan u dhaxayso magaceed meeshaas u dhaxayso ujeedaa oo quruxda badan meeshaasi magaceeda ayaa la rabaa waxaa loo yaqaanaa filtrum meeshaan waxa la yiraahdaa filtrum su'aasha tobnaad ee barnaamijka ahna su'aasha ugu dambeysay ee su'aal isweydaarsigeennii cilmiga caafimaadka waxay noqonaysaa xubintee ayaa leh awoodda dib u kabashada ama dib u soo dhalashada ugu weyn xubinta haddii adeer oo kamid qof lagu beero hore ka soo dhalanaysa ama wax jab yar oo kamid haduu ka nool yahay soo buuxsamaysa si dhaqso leh xubinta dib u kabashada ugu weyn samaysa ama dib u soo laabata waxa lagu magacaabaa liver waa beerka 90% hadii qofka laga saaray hal xad ee yar oo haysto waxay awoodaan in inta isqaybiyaan isla markiiba ay soo buuxiyaan positionkii beer dhameystiran ay noqdaan xubinta dib u soo kabashada ugu weyn samaysa waa beerka أدب أمها سنتاي سأقول سعوت مقالك هنا وكاجمع العناية فضلا لايك شير فلو أنت بقى نوسع تنكر نقص عليك جرتي وقال كيو 8 كيلو ميقح شيء تمبر 1 تمبر 10 سدوا هذا